السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا انت channel يوتيوب كحر رمضان أكاديمي أونلاين سو دوادا waxaan qaadan doonaa maadada physics-ka form 4 casharka labaad waxaan hor u soo qaadanay casharka koowaad waxaana ku soo qaadanay oscillator motion waa maxay oscillator motion sidoo kale waxaan ku soo qaadanay examples ka mid ah oscillator motion-ka sidoo kale waxaan soo qaadanay periodic motion iyo tusaalooyin ka mid ah periodic motion-ka caawa casharkan wuxuu ku saabsan yahay period frequency rakaadka period iyo kalka oo periodic motion ee socodkaleedka kalka iyo rakaadka socodkaleedka ayuu caawa casharkan ku saabsan yahay Ramadan Academy Online kala soco maadooyinka xisaabta iyo physics-ka ee dugsiga sare sidoo kale kala soco xisaab fasalka 8aad ee dugsiga dhexe caawa hadii aynu guda galno casharkeena frequency waxaan dhahnay frequency rakaadka period iyo kalka periodic motion ee socodkaleedka waxaan qeexi doonaa frequency rakaad ama noqnoqod f loo soo gaabshaa frequency qeexitaankiisa waa definition-ka waxa halkan inooga muuqda is the number waa tirada of cycles ee wareeg met intaasoo lagu sameeyay in 1 second meetaasoo lagu sameeyay in 1 second hal ilbiriqsi 1 second cycle-ka lagu sameeyaa waxaa loo yaqaanaa frequency the SI unit halbeeg caalamiga SI waxaa laga soo gaabshay system international unit of frequency ee rakaadka iskolet waxaa loo yaqaanaa hertz halbeega caalamiga ee lagu cabiro rakaadka ama noqnoqodka waxaa loo yaqaanaa hertz waxaa kaloo dhigi kartaa ama per second labada waa lagu qeexaa aan ku celiyo frequency f la soo gaabshaa oo capital ah maxaa la hadii lagu weydiiyo waxaad ku qeexdaa is the number waa tirada of cycles ee wareegtaasoo met lagu sameeyay in 1 second hal second hal ilbiriqsi wareega lagu sameeyay waxaa loo yaqaanaa rakaad ama noqnoqod dais unit halbeega caalamiga oo frequency ee rakaadka lagu cabiro iskolet waxaa loo yaqaanaa hertz loo yaqaanaa ama per second sidoo kale frequency-ha waa la raadiyaa oo waxaa lagu helaa frequency waa formuladii qaacidada frequency lagu helo final frequency hadii lagu weydiiyo frequency waxaa lagu helaa number of oscillation tirada wareeg inta wareeg oo loo qaybshay waqtiga ay ku qaadatay haddaba qaacidadaasi waxay ka imaatay sidan asalkeeda waa sidan qaacidadaasi waxay ku imaatay sidan frequency iyo number of cycles iyo time-ka waxaan ka dhexaysiinaynaa frequency rakaadkan iyo time-ka halkan inooga qoran iyo number of cycles-kana waxaan ka dhexaysiinaynaa relationship waxaan leenahay frequency-ga oo f soo gaabsho directly proportional wuxuu saamiga toos uu leeyahay number of cycles tirada wareeg number inuu soo qaadan doonaa number of oscillation-ka ayuu saamiga toos leeyahay waxaan kala jeedaa frequency-ha haddii uu bato number of cycles-kana way badanayaan sidoo kale waxaa leenahay frequency-ha wuxuu inversely proportional uu leeyahay inversely proportional wuxuu saamiga quneen uu leeyahay time-ka ayaa dhahaynaa taasoo ay tahay frequency haddii uu bato time-ka wuu yaraanayaa inversely ruwaala isku yihiin cagsi isku yihiin time-ka haddii uu batana frequency-ha yaraanayo saa darteed waxaan kasoo saari doonaa halkan qaacidadan halkan inooga qoran oo frequency waxaa lagu helaa number of oscillation inta wareeg tirada wareegyada oo loo qaybshay time taken saa darteed waxaa leenahay f-tan iyo f-tan hal f kasoo qaadanaynaa calaamadan directly proportional-ka noo soo qaad
labadan directed proportional iyo directed proportional kan hala ka soo qaadanaynaa saddex waxaa leenahay number of cycles oo kan ah number of cycles tirada wareeg ama number of oscillations oo lagu dhuftay 1/t 1/t-da qaybta dambe ah sadarteed iftaana soo qaadanaynaa calaamadan directed proportionalka equal constant ku bedelanaynaa number of cycles kan iyo wankan isku dhufanaynaa noocan waa fraction kuna waxa la sameeyaa labada sar waa isku dhuftaa labada hoosena waa isku dhuftaa sidoo kale waxa leenahay number of oscillation times 1 korka waxa ka soo baxayo number of oscillation tirada wareeg oo loo qaybshay inta wareeg oo loo qaybshay time taken qaacidadan proofkeeda sidaas ayayna ku imaatay waxaan filayaa in qaacidadaas aad fahanteen proofkeeda insha Allah qaabkaas loo soo proof gareeyaa qaacidada waxaan u gudbaynaa period waa maxay periodka t capital loo soo gaabshaa t capital kana wuxuu ka yimid tambas ereygan periodka wuxuu ka yimid erey Greek ah kaas oo loo yaqaan tambaskaas waxaa loo soo gaabshaa Ingiriiskiisa time period marka timeka caadiga t small loo soo gaabshaa laakiin time periodka t capital loo soo gaabshaa marka period maxaa la halkan waxay noo qoran qeexitaan period waxa dhahnay period kal sheegnay waa maxay kal hadii lagu weydiiyo qeexitaankana siinay kal is the time taken waa waqtiga ay ku qaadanayso to make inuu sameysmo one complete cycle hal wareeg oo dhameystiran waqtiga ay ku qaadanaysa waxaa loo yaqaanaa kal SI unitka system international unitka halbeega lagu cabiro periodka kalku is second waa second periodka waa la xisaabiyaa periodka waxaa lagu helaa time taken oo loo qaybshay number of oscillation qaacidadana aan soo proof gareyno proving marka ku sameynayna qaacidadan proofkeeda iyaduna waxay noqonaysaa waxa xiriir ka dhaxaysiinayna periodka iyo frequency-ha periodka iyo number of cycleska iyo time takenka xiriir ka dhaxaysiinayna oo waxa leenahay periodka wuxuu saamigal toos uu leeyahay timeka t smaller timeka loo soo gaabshaa timeka sidoo kale waxa dhahaynaa periodka directed proportional kan waxay noo sheegaysaa periodka hadii uu kordho timekuna wuu badanayaa face versa isku yihiin cagsi isku yihiin directed proportional kan periodka hadii la badsho timekuna wuu badanayaa sidoo kale timeka hadii la badiyo periodkana wuu badanayaa sidoo kale periodka wuxuu inversely proportional uu leeyahay number of cycles inta wareeg oo la sameeyna saamigal aan toosnayn ayuu leeyahay inversely ayuu leeyahay calaamadan directed proportional ayaa la jeedaa directed proportional tanna waxa waa inversely proportional saadarteed halkaas markii noo marayso t-dan iyo t-dan t periodka loo soo gaabshay t capitalka halka ka soo qaadane calaamadan directed proportionalka halka soo qaado waxa dhahaynaa t times halka waxaa noo yaala timekii oo lagu dhuftay 1/number of cycles hal loo qaybshay number of oscillation ama cycles equal t times 1 hadhaynaa t iyo 1 kana isku dhufanayna waa t divided by number of oscillation kana sideeda soo qaadana hadaba qaadadaasna halkaas ay ku imaatay oo waxa dhahaynaa periodka wuxuu la mid yahay time takenka oo t loo soo gaabsho oo loo qaybshay number of cycles and number of oscillation qaadada periodkana waa sidaas iyana sidoo kale
labadan frequency iyo periodka waxay isla yihiin rogaal oo halkan period aan noo qoro one-ka hadda hoos yaalo haddii kor la keensho waxay noqonaya 1/, period labadan haddii kala rogana saa darteed frequency wuxuu la mid noqonaa 1/t. t haddii lagu siiyo lagu weydiiyo frequency waxaa dhihi kartaa hal loo qaybshay periodka. sidoo kale period haddii lagu weydiiyo lagu siiyo frequency waxaa dhihi kartaa 1/f. qaacidooyinka labada qaacido sidaas ayaa isu dhiran dhirsha. aan ku celiyo waxaa dhahnay waa maxay frequency waxaa dhahnay f capital loo soo gaabshaa is the number waa tirada of cycles ee wareeg made taasoo la sameeyay in 1 second. hal second wareega la sameeya waxaa loo yaqaanaa frequency rakaad ama noqnoqod. sidaa darteed the SI unit halbeega caalamiga of frequency ee rakaad iskolet waxaa loo yaqaanaa hertz ama per second loo yaqaanaa per second waa dhihi kartaa. frequency waa la xisaabiyaa. frequency waxaa lagu helaa number of oscillation tirada wareeg oo loo qaybshay waqtiga ku qaad time taking ee ku qaadatay. qaacidadan proofkeeda waa halkaas waxaa dhahnay frequency haddii uu bato is directly proportional wuxuu saamiga toos leeyahay number of oscillation and number of cycles. dhahnay frequency haddii uu bato number of cycles yani tirada wareegiduna way badanayaan. sidoo kale number of cycles hadday bataan inta wareeg la sameeyo hadday ay badato frequency wuu badanayaa. frequency iyo waxa kale xiriir ka dhaxeynay waxa ka dhaxaysiinay time-ka. frequency haddii uu bato time-ka wuu yaraanayaa. time-ka haddii la badiyana frequency yaraana. marka inversely proportional ay isku yihiin halkan directly proportional ay isku yihiin. qaacidada proofkaas ayaa lagu soo saaraa sidaas loo fahmo. periodka waxaa dhahnay ereygan period t capital la soo gaabiyaa wuxuu ka yimaada dhahnay tambas. ereygaas tambas waa erey Greek dhahnay waxaa la soo gaabshaa time period t capital la soo gaabshaa waxaa lagu qeexaa dhahnay is the time taken waa waqti ay ku qaadatay to make inuu sameysmo one complete cycle hal wareego dhameystiran. SI unit halbeega SI unit of period kalka halbeega caalamiga lagu cabiro SI system international unit loo soo gaabshaa dhahnay is second waa second SI loo soo gaabshaa. sidoo kale waxaa dhahnay periodka waa la xisaabiyaa waxaa lagu helaa time taken waqtiga ay ku qaadatay oo loo qaybshay number of cycles. waxaa dhahnay frequency haddii lagu weydiiyo periodna lagu siiyo waxaa dhihi kartaa 1/t hal loo qaybshay periodka dhihi kartaa. sidoo kale period cagsi isku yihiin yani rogaal isku yihiin haddii kuwan yani la dabagediyo. waxaa kaloo dhahnay proofkan periodka asna proofkan uu leeyahay dhahnay periodka haddii uu bato periodka waxaa dhahnay directly proportional wuxuu saamiga toos leeyahay dhahnay time-ka waqtiga. time-ka haddii la basho periodkan wuu badanayaa dhahnay. periodka haddii la badin time-ka wuu badanayaa directly proportional saamiga toos isku yihiin. laakiin periodka wuxuu inversely leeyahay dhahnay number of cycles. inversely calaamadan waxay noo sheegay inversely proportional waa cagsi isku yihiin yani labadan. kan haddii uu bato period haddii uu bato number of cycles ka yaraanayo. number of cycles haddii la badiyana period ka yaraanayo. qaacidadaas sidaas lagu soo saaraa. haddaba halkan waxay noo qoran what cause maxaa sababa activity waa what cause maxaa sababa objectives walxaha to vibrate inay gariiraan. su-aashaas la soo xaliyo haddii aad soo fahmi weysaana qaybta commentiga lagu soo reeb insha Allah. waxaan u gudbaynaa tusaalaha koowaad ee halkan inooga qoran. tusaalaha koowaad waxaa inoo qoran suspended mass ruf ayaa la soo laalaadiyay max 30 complex cycles. waxaa la soo laalaashay meel wuxuuna wareegtay 30 wareeg oo dhameystiran. 30kan wareeg inuu wareegtana waxay ku qaadatay amin waqtiga ay ku qaadan wuxuu ahaa 15 second. waa maxay period kalka and frequency iyo rakaadka. period iyo frequency lagu weydiiyay. suspended mass ruf ayaa laga soo laalaashay meel max wuxuuna sameeyay 60 complete oscillation 60 wareeg oo dhameystiran ayuu sameeyay. 60kan wareeg inuu sameeyana waxay ku qaadatay 15 second. waa maxay period kalka and frequency iyo rakaadka of motion ee socodka given. su-aasha marka lagu weydiiyo given inaad samaysto maxaa lii weydiiyay labada inaad kala ogtahay. number of cycles inta wareeg
uu sameeyo ifka lagu sheegay waa 30 wareeg haddaba halkaa waxaa haystaa n number of cycles waa haysataa sidoo kale waxaa lagu yidhi time taking ee ku qaadatay wuxuu 15 waxaa lagu weydiiyey t iyo frequency waxaa dhahani t or period waxaa lagu helaa time taking waqtiga ay ku qaadatay oo loo qaybshay number of cycles inta wareega loo sameeyay time taking wuxuu dhahnay 15 walaxdan number of oscillationka inta wareego samaysana waa 60 15 loo qaybshay 60 aan dhahayna 0.25 second soo baxayso waa sidaas qaybta b na waxaa kaloo nala weydiiyey frequency rakaadka sidoo kale waxaa lagu helaa number of oscillation inta wareego la sameeyay waa 60 loo qaybshay time taking ay ku qaadatayna waa 15 saa darteedna 4 hertz frequency s unitkiisa waa 4 hertz haddii unitka ka tagtid jawaabta soo saartid haddaba waa qalad la soco unitka inaad raaciso waajib waaye tusaalaha labaad haddii aynu u gudubno tusaalaha labaad wuxuu dhacayaa sidan if haddii your heart rate garaaca wadnahaaga haddii wadnahaaga uu garaaco 150 beats haddii wadnahaaga uu garaaco 150 garaac haddii uu sameeyo per minute halkii daqiiqo 1 minute haddii uu sameeyo wadnahaaga during inta lagu guda jiro strenuous exercise waqtiga aalamiintada ama waqtiga exercise-ka waqtiga jimicsiga what is maxay the time waqtiga per beat uu sameynayo in units adigoo ku cabiraysid of seconds aan ku celiyo if haddii your heart rate yani garaac wadnahaaga haddii uu sameeyo 150 per beats 150 beats haddii uu sameeyo 150 garaac haddii uu sameeyo ayna ku qaadato per minute halkii daqiiqo during inta lagu guda jiro strenuous exercise waqtiga aalamiintada what is maxay the time waqtiga ay ku qaadanayso per beat what is maxay the time waqtiga ay ku qaadanayso halkii garaac in units adigoo ku cabiraysid of second adigoo isticmaalaysid ilbiriqs adigoo isticmaalaysid waa maxay waqtiga ay ku qaadanayso haddaba waxaa lagu weydiiyey halkaas given and maxaa haystaa waxaa lagu siiyey sida muuqata number of cycles number of beats garaac wadnaha uu sameeyey waa number inaa haysta haddaba n garaac wadnaha uu sameeyey waa 150 beats waqtiga ay ku qaadatin waa 1 minute 1 minute kan waxaa u bedelay second 1 minute waxaa u bedelay second ilbiriqs u bedelay waxaa dheh 1 times 60 hal lagu dhuftay 60 waxaa kusoo baxaya marka 60 seconds saa darteed period kalka waxa uu la mid yahay time taking waqtiga ay ku qaadatay waa 60 second oo loo qaybshay 150 oo ah number of oscillations saa darteed labadaas waa isku qaybinay 0.4 second per beat ay ku qaadatay inuu sameeyo halkii minuteba halkan waxaa inoogu jiro practice-kan soo xalli haddii aad soo xalliwaysan qaybta commentiga iyo soo reeb anigoo tixgelin doona codsiyada gaarka ee ardayda Soomaaliyeed videoga haddii aad daawatay ardayda Soomaaliyeed u gudbi si ay iyaguna ugu faa'iidaan xiisadan online-ka firiga ayaan ugu talagalay ardayda Soomaaliyeed habeenka idin wacnaado